xaaladda magaalada Gaalkacyo ee caawa waxaan kula wadaagi doonaa wararkii ugu dambeeyay ka soo baxaya magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug dhinaca kale saansaan colaadeed ayaa laga dareemayaa magaalada Boosaaso ee gobolka Bari ee maamulka Puntland kadib markii Siciid Cabdullaahi Deni oo ciidamo fara badan oo ka baxay magaalada Garowe uu geeyay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari maxaa ka jira in la weeraray xeradii BSF ee ku tiilay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari dhinaca kale yaa ku sugan magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug maxaa ka jira in ciidamada maamulka Puntland isaga baxeen magaaladaasi wararkii ugu dambeeyay iyo dagaalada halkaasi ka dhacay iyo xilli waliba dagaalka halkaasi laga filan karo iyo wararkii ugu dambeeyay ayaan caawa muuqaalkan idin kula wadaagi doonaa soo dhawaada saaxiibayaal waa habeenimo markaasi 4 taariikhda ku aasaysan tahay 5 bisha 8 Agoosto sanada 2026 dagaal qaraar oo saaka waa barigii ka bilowday magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug waxa markaasi ciidamada maamulka Puntland u suurta gashay inay gacanta ku dhigaan xeradii Istanbul ee waqooyiga magaalada Gaalkacyo halkaas oo ku sugnaayeen ciidamadii BSF ee hore ka goostay maamulka Puntland ee dagaalada kula galay aagga laag magaalada Boosaaso ee gobolka Bari ciidamada maamulka Puntland ayaa tan iyo maanta dagaal ay kula wareegeen magaaladaas ku sugnaa dhinaca kale ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ku sugan magaalada Gaalkacyo dhanka Galmudug ee maamusho ayaa waxa la soo sheegay in marka ka dambaysa ay gaadiid dagaal ay rakibteen mar walibana ay iska caabi karaan ciidamada maamulka Puntland balse caawa xiisadu dhinaca kale ay u jeesatay magaalada Boosaaso ayaa culays weyn wajahaysa xilli waliba oo la hadlayana waxa la filan karaa inuu xilligaasi oo markaasi oo dagaal ka qarxo magaalada Boosaaso ee gobolka Bari ee maamulka Puntland magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ayaa sidoo kale wajahaysa cudud ciidan iyadoo ciidamo ka soo baxay magaalada Garowe ee gobolka Nugaal ee caasimadda maamulka Puntland ay gaareen magaalada Boosaaso ee gobolka Bari ee maamulka Puntland ciidamadii BSF ee ku sugan xere ay ku lahaayeen magaalada Boosaaso ayaana caawa xilligan idila hadlayo la hareereeyay waxaana Siciid Cabdullaahi Deni uu qabtay in 24 saac ay isku soo dhiibaan ciidamada ku sugan magaalada waa markaasi Boosaaso ee gobolka Bari ee maamulka Puntland wararkii ugu dambeeyay qasaare culus iyadoo aynu ogeynay inuu ka dhashay dagaalkii maanta ka dhacay magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug caawana waxay wararku tilmaamayaan in Siciid Cabdullaahi Deni uu hareereeyay magaalada Boosaaso ee gobolka Bari ee maamulka Puntland waxa uu ku amray in markaasi ciidamada maamulka waa markaasi BSF ee dawladda federaalka Soomaaliya garab keenay inay soo dhiibaan waxa xogaa qaar ay tilmaamayaan in ciidamadaasi birito isaga bixi doonaan magaalada Boosaaso ee gobolka Bari halkaasina hub iyo saanad ay hayaan ku wareeji doonaan ciidamada maamulka Puntland ciidamada booliska Puntland oo iyagu war-saxaafadeed ka soo saaray dagaalkii maanta ka dhacay magaalada Gaalkacyo waxay sheegeen in kooxo amniga khatar ku ah ay markaasi ay ka hortagayeen xilligan howlgalka wajigii koowaad lagu soo afjaray magaalada Gaalkacyo markana loo jihaysan karo magaalada Boosaaso ee gobolka Bari ee maamulka Puntland dawladda federaalka Soomaaliya ayaa iyadu ciidamo fara badan waxay ka daabushay magaalada caasimadda ee Muqdisho waxay ku wajahan yihiin magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug ee maamulka markaasi Puntland sidoo kale Galmudug ee maamusho taliyihii ciidamada BSF ee ku sugnaa xerada Istanbul ee waqooyiga magaalada Gaalkacyo ayaa caawa xaaladiisa markaasi iyada waxa la tilmaamayaa in uu markaasi ku sugan yahay waqooyiga magaaladaasi dhanka Galmudug ee maamusho ciidamada danab ee markaasi ku sugan dhanka Galmudug maamusho ayaana la sheegay in Maxamuud Diyaano oo ah Asad Diyaano waa taliyaha booliska ama markaasi Asad Diyaano oo ah sarkaal ka tirsan ciidanka booliska oo Asad waa markaasi Maxamuud Diyaano oo la dhashay oo ciidamadan uu hogaaminayay intan iyo saaka markuu dagaalku uu qarxaba uu isaga baxay halkaasi waxa uu na gaaray ciidamada danab ee ku sugan magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug ciidamadii BSF ee ku sugnaa waqooyiga magaaladaasi ama markaasi xerada Istanbul lagu magacaabo iyagu waa laga wareegay halkaasi waa la balqaysay agabyadii waxyaabihii yeelay waxaana markaasi ciidamada maamulka Puntland ay gacanta ku dhigeen hub iyo saanad ciidan wixii inta ka dambeeyay madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdullaahi Deni oo hadda waxa uu tilmaamay la soo afjaray howlgalka wajiga koobaad Siciid Cabdullaahi Deni waxa markaasi oo ciidamo fara badan oo u diray magaalada Boosaaso ee gobolka Bari waxaana la sheegay in xerooyin halkaasi ku yaala oo ay leeyihiin ciidamada BSF la soo afjari doono dhawaanba markaasi ay ku dhaqaaqi doonaan ciidamada maamulka Puntland khilaafkan kala dhaxeeya dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Puntland ayaa dhawaan soo ifbaxay iyadoo markaasi dagaal kan ka horeeyay ka dhacay aagga laag ee magaalada Boosaaso ee gobolka Bari ciidamada BSF ayaana hore halkaasi waxay ugu la dagaalameen ciidamada maamulka Puntland balse waa isaga goosteen waxayna sheegeen in markaasi ayna dagaal ayna la geli dooneen ciidamo markaasi isku deegaan ay ka soo wada jeedaan
سعيد عبد الله دني ciidamadii waa markaasi ciidamo fara badan ayuu caawa ka soo ruqaamiyay ama markaasi uu ka keenay buuraha caalamiska ah ee gobolka Bari iyo sidoo kale magaalada Garowe iyo sidoo kale magaalooyin kale oo markaasi ay Puntland ay maamusho waxaana la sheegay in xilligan uu culeysku isku geeyay magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug waxaana halka markaasi la tilmaamayaa in xilligaanba wixii ka dambeeyay oo markaasi uu ku dhaqaaqi doono xarada BSF ku leeyihiin waqooyiga magaalada markaasi Boosaaso ee gobolka Bari ee maamulka Puntland magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga maamulka Puntland ayaa caawiyay cudud ciidan iyadoo xilli waliba oo dagaal uu ka qarxi doono oo u dhaxeeya markaasi ciidamada BSF ee ku sugan xarada magaalada Boosaaso ee gobolka Bari iyo sidoo kale ciidamada maamulka Puntland سعيد عبد الله دني oo markaasi hadlayay kadib dagaalka waxa uu sheegay in Xasan Sheekh Maxamuud uu ka dambeeyo ciidamadan uu ku soo daabulayo magaalooyinka kala duwan ee ammaanka ah ee maamulka Puntland waxa uu sheegay in xilligan wixii ka dambeeyay uu dul qaadan dooneen iyagoo markaasi gacanta ku dhigi doona cid waliba oo ammaanka lid ku ah magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug iyo sidoo kale magaalada Boosaaso iyo magaalooyin kale ee Puntland ee maamusho dowladda federaalka Soomaaliya iyadoo dagaalkan war wali mayna ka soo saarin waxaana markaasi la tilmaamayaa in cudud ciidan ay halkaasi ay geey doonto iyadoo awood kula wareegi doonto deegaanada maamulka Puntland su'aasha taagan waxay tahay masidiis markaasi Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayuu isku difaaci doona Siciid Cabdullaahi Deni mase dagaalkan kadib dowladdu waxay qaadi doontaa weeraro cir iyo dhul oo markaasi ku qaadayso ciidanka maamulka Puntland Siciid Cabdullaahi Deni isagu dirbaba waxa uu bilaabayaa in markaasi wajiye kala duwan oo dagaalkan uu ku wajaho isagoo magaalada Gaalkacyo saaka weerar ku qaaday xilligan waxa markaasi la tilmaamayaa in markaasi ciidamadiisu ay dul haganayaan xerada magaalada Boosaaso ee gobolka Bari ee xarunta ganacsiga maamulka Puntland ku taala oo ciidamada BSF ay leeyihiin ciidamada BMBF ee markaasi maamulka Puntland ayaa iyagu howlgaladan fulinaya waxaana la tilmaamayaa in markaasiba ay ka saareen ama markaasi ay la wareegeen hubkii ay lahaayeen ciidamada Mareykanku taakulada siinayay sidoo kale dowladda federaalka Soomaaliya ee BSF iyada waa la kala diray taliyihii ciidankaasi hogaaminayay Maxamuud Diyaano walaalkaas Diyaano wuxuu ku sugan yahay waqooyiga magaalada Gaalkacyo dhanka Galmudug ee maamusha ciidamadii Danab ayuuna gacanta uu ku dhigay xiisad waliba ay taagan tahay dhanka magaalada Boosaaso caawa culeys xooggan ayaa markaasi ka jira iyadoo xilli waliba oo dagaal uu markaasi uu ka qarxi doono ama markaasi uu ka qarxi karo waxyaabaha ka soo kordhay xiisada magaalada Gaalkacyo oo xilli waliba markaasi dagaal u jeesan karta iyo Siciid Cabdullaahi Deni oo 48 saac u qabtay ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ee ku sugan magaalooyinka ay ka taliyaan maamulka Puntland halkan ayaan idin kula wadaagi doonaa aqaartana daawanaysa nagu soo bira muuqaalka meel dheer gaarsiiya aad baad u mahadsantiin